waxaan ku fadhinaa 30 caaqil oo ka tirsan cuqaasha gobolka Cayn baaqana aanu sii daynayna wuxuu daba taagan yahay si khalada u baxay shalayto oo dibadda u baxay baaqaas oo daba soconnaa waxaanu idin sheegaynaa wax caaqila oo halkaa joogay ma jirin shalay cuqaashii gobolka Cayn halkan ay fadhidaa baaqana waxay ka ogtahay ma jirto ciiday u wakiilatayna ma jirto waxa weeyaan wax allaale wixii ama baaqa ama tala ama siyaasadana maamul bay ka leedahay gobolka Cayn uu ka leeyahay cuqaashuna ay ka leedahay warbaahinta waxaan u sheegayaa markaa wixii halkaas shalay ka dhacay inaan waxa waxba ka jiran u ahaa inaan cuqaali joogin inaan wax garad joogin guri hoostii inta ma garanaysaay record iyo la dhigay ma garanaysaay warbaahinta insaa lagu duubay baan warbaahinta u sheegaynaa halkana 30 caaqil baa fadhiya oo ka tirsan gobolka Cayn waxay ka ogyihiin ma jirto nabadda diidi mayno nabadda laakiin dawlad baanu ka leenahay madax meel ka sareeyo oo la masaxaasoonaado ma jirtay ku maamaada dawladda iyadu waxa weeyaan iyadaan uga daba fadhinaa wixii ama nabada ama xalay ay bulshada u raadinayso iyada wakiilastay hadalkan la sheegay ay la xiriireen odayaasha gaarkii maamulkaas galbeedka hadalkaas waxba kama jiraan cid idmatayna ma jirto xaq dhaqan iyo xaq maamul toona looma idman codkoodii bay ku hadleen ama ha xumaada ama ha wanaagsanada waxay ku hadleen cid ay ku matalaan ma jirto oo kale laakiin inta ay yidhaahdeen waa la ayidaya waa kula socdaa arradayadu inta Sanaag Sool Cayn ilaa arradayada inta taaka ka maqan tahay cid aanu la xaajoonaynaa ma jirto cid aan dagaal baan ka xignaa dagaalkaan ku jiraan xoogaynayna waa run markaas dagaalkaan ku jiraan xoogaynayna annaguna waxaan rajaynaynaa inaanu Caynaba furanno inaanu soconno ilaa burco soconaan rajaynayna oga baxa dalka muslim hadaatin ka baxa dalka dhumaantay Sanaag Sool Buuhoodle ama Caynba haddaydaan ka bixin intaa taa ka haysataan nabad baanaan idinla qaadanayn nabad baan aanaan baadi doonayn waxaan dagaal ahayn idinku ballan qaadi mayno dagaal baanu diyaar idin lanahay inaanu idinka qabsanno dhulkaas joogtaana aad baanu ugu rajo weynaa inaanu ilaa burco qabanno aad baanu ugu rajo weynaa waxay u marayaan oo lagu toosinayo wada hadlayaan oday dhaqameed haddii nabadaas ka xidhmusana oday dhaqameed kala maray laakiin niman labadaaba ahayn nabad xidh maayo annana raaci mayno idina iyo walaahayn ha ku lulmoonina waa sida goormaad u noqotay ay dalkana ka kacaan ay haystaan haddaanu nahay madaxda dhaqanka ee Khaatumo waxaanu siyaasadii u idmanay sida la wada og yahay ee caalamku wada og yahay maamulka Khaatumo madaxdiisa maamulkaas oo ah mid beeshu samaysatay waxaa soo baxaya hadallo dhawaan madax dhaqameed ka soo jeeda ama odayaal ka soo jeeda deegaanka Buuhoodle iyo xubno ka mid ah maamulka Hargeysa inay xiriir sameeyeen waxaanu ku leenahay xubnaha ka mid ah maamulka Hargeysa maydan abaarin maxaa la yiraahdaa xaqiiqda nabaduna waxay ku imaanaysaa waa la og yahay waxay ku imaanaysaa nabadu dhulka aad haysataan ee ka tirsan Sool ee ka tirsan Buuhoodle ee aad baadilka ku haysataan oo aad faaruqisaan oo aad dadka u baneysaan biyaha iyo dhulka aad ka haysataan bay nabadu ku imaanaysaa waxaanu mar labaad cadeynaynaa in madax dhaqameedku ay hayaan hawshii dhaqanka oo aanu ku agnahay hawsha dhaqanka wixii siyaasadana ay madaxda maamulka Khaatumo mas'uul ka tahay oo hawsha saa loo kala saaray wassalaamu calaykum marka labaysa waxaan salaamayaa ummadda u dhalatay deegaamada Sool Sanaag iyo Cayn ee reer Khaatumo baan mar labaad salaamaya haddii aan bilaabo hadalkayga ujeedkiisa iyo nuxurkiisa oo ku saabsan xiriirkii ay wada yeesheen wasiirka arrimaha gudaha taliska Siilaanyo iyo odayaal dhaqameed deegaankan ah waxaan sheegayaa inay arrintaasi ahayd arrin qaldan wasiir haddii ay leeyihiin Somaliland wasiir baanu ka leenahay haddii ay madaxweyne leeyihiinna madaxweynaanu ka leenahay haddii ay oday dhaqameed leeyihiinna oday dhaqameed baanu ka leenahay waxaanu aad iyo aad u cambaaraynaynaa kuwa baaqaa jeediyey
هتجين هرجيسة يبرعو waxaanu leenahay baaqaad jeediseen aad baanu idinku cambaray kuwiina Soomaaliland qaatayna waad qaadateen ku amal fala hadda doonta waxaan uga gudbayaa taa ka dhul aanu leenahay idinku saamcimin inta aanu noolahay waa ku dagaalamayna wax dagaal aanu daynaynaa ma jiro haddaad ismatihiin iyo haddaad wasiiratihiin waxaanu leenahay ismo iyo wasiiro waxaanu leenahay kuwa dhigiino kala intaad odayaal la soo faqaysaan aad leediin jeediya baaq laga jeedinaya oo dambe ma jiro kuwii baaqa jeedina haddaan raadsanayna waa beenaynay annaga beenaynay baaqoodii waxaan leeyahay nooga guuro dalka yaga wallaahi inaanan idinku saamxin cayn wadaama gooydu ku saamxin oo meel laba idinku saamxin inta aan noolahay anugu nooga guuro dalka yaga waxaan hadalkii ku soo gabagabeynayaa ninka wasiirka ee la soo hadlay odayaasha gaarka ah wasiiraanu leenahay halkan ay fadhiyaan la hadla madaxweynaanu leenahay la hadla waxaan aballinkiinahayn idinaha ku kicina waxa aad nagula hadashaan han noqoto aan laba maamul noqono kala goono wax kale aanu qaadanayna ma jiro waxaanu nahay Khaatumo State of Somalia idinna waxaad tihiin waxaad sheegan jirteen halkan sida wasiirku sheegay waxaan ka bixinaynaa warsaxaafad waraysigii uu dhiibay wasiirka arrimaha gudaha maamul goboleedka Soomaaliya ee waqooyi galbeed waraysiga uu dhiibay nabad buu ka hadlay nabadda lama diido waa wixii nabad ku saabsan waan soo dhaweynaynaa anagu maamulka Khaatumo laakiin waxay u baahan tahay in la soo maro wadadii ay lahayd aan laga leexanin in lala soo xiriiro odayaal ka tirsan maamulka Khaatumo ahaan shacabka reer Khaatumo waxaan u aragnaa inay tahay xad gudub odayaasheedii lala soo xiriiray maamul baan ahay haddii ay maamul yihiin maamul bay la soo hadlayaan nabaduna kama go'do oday waxay ka go'daa maamulka Khaatumo iyo wixii madax dhaqameeda ee iyagu aan u idmano inay nabadda xidhaan laakiin waa marka ay timaado nabaddu ay la hubo inay xidhmayso iyada oo sida aynu ka warhayno ama caalamku dhan og yahay ceelashii biyaha laga fadhiyo sidii wasiirku u magacaabay isla markaana la fadhiyo caasimadii dhulbahantee ay gacan ku jirto maamulka waxaan nabad kaga hadlaa noo muuqato maamul ahaan maamulka Khaatumo nabad buu ku dhisan yahay siyaasadiisu laakiin nabad been ah oo aan jirin iyadoo ceelashii biyaha iyo daaqii iyo dhulkii reer miyigu ay ku noolaayeen lama arag Soomaalina weli may soo marin in ceelal biyo oo la isku oomiyo oo ciidan inta la dulkeeno la yiraahdo laga cabi maayo muddo dheer lagu wado nabadda been abuurka aan jirin ee aan saliya raatoona lahayn ayaanu shir jaraa'id ka qabanay maanta waxaanu leenahay odayaal iyo dawlad labadaba waanu leenahay nabaddana waanu ogolahay laakiin ma ogolin nabad beenbeena oo aan jirin oo iyadoo dalkii la haysto dadkii la xasuuqayo haddana afka laga leeyahay afka baarkeeda inaanay waxba ka jirin odayaal la sasaban karo maanta oo lala dhuuman karo oo la xari karaana aanay jirin taasaanu shirka jaraa'id ka qabanay waanu ka hadlaynaa